بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله كسو دوادا الواد قرح channel وان إذين سلامي ميل والبوادون إذا كجوكتان يحل والبوادين تاي واحد إذين رجالي خير يعافي ما دمانتينا صحابة عصب سو دوادا كسو دوادا قلبي فوران هذا يومات ستين بوقشة channel كسو بوقتان يصير سبسكرايب تاو صارتين دمانتينا ومات سنتين إنا إذين نوري marnaba kama daalaay walaal du videogi kugu horeey uu yahay am channelka marka ugu horeeyo soo booqanaysid soo dhaweeyo ku leeyahay hadaa wili subscribe dhihin fadlan subscribe dheh gambaleelka furo sida video walba cusub uu kugu soo dhaco amaadsan tahay maanta waxaan oo wadaa asxaabteyda sida afkaaga aad u carfin lahayd ama ugu hortagi lahayd inuu afkaaga soo shiiro labadaba haddii aad dhibkaas qabtayna waad ku carfinaysaa haddii aadan qabinna waad uga hortagaysaa insha allah waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontiin kana faa'iidaysan doontiin marka ugu horeeyo afka soo shiiraayo laba qeybood ayay u baxaan qeyb waxaa waaye qofka biniaadanka inuu gudaha ka jiran yahay gudahaased waa inaad iska daaweysaa oo aad iska nadiifisaa biyo badan cabtaa ama dhakhtar raadsataa midka kalena waxaa waaye in aad afkaaga xanaano badan aadan siinin matalan qofka biniaadanka waxaa la rabaa maalintii haweenkii iyo maalintii yacni laba jeer inuu cadeysto mideeda labaad markii aad cadeysanaysid ama markii aad cuntaysid inaad ilkahaaga aad tifaysid ama waxaa ugu fiican dunta inaad ku bixbixisid ama istakiin wax alla waxaa haysatid ilkahaaga oo dhan kor ilaa iyo hoos mid walba aad ka saartid haddii kaleeto wixii ayaa ilkaha galaayo kadibna bacteria ayay dhalinayaan meesha ayay waxay ka bilaabayaan inuu afkii soo shiiro marka dadkaaseeti kama jirno gudaha laakiin xanaano daro oo ilkaha ayaa heeso marka saas waaye waxaan rajeynayaa inaad fikradaaseti ka faa'iidaysan doontaan marka baata waxaa rabaa laba shay bisa haysanaa aan afka ku carfinayno iyo waxaan rabaa marka ugu hore faa'iidada ee afka u leedahay dhagayare ama qalanfur qof walba siduu u yaqaano dhagayaraha waa maado sameyso ama kabaabiyada afka loogu talagalay kaniiniyada ama daawooyinka kabaabisada laga sameeyo waxaa laga sameeyaa qalanfurka ama dhagayaraha qof walba siduu u yaqaano haddii aad maalintii hal xabo cuntid ama matalan gooska ayaa ku xanuunayo haddii aad hal xabo calaanjisid kadibna gooska aad ku haysid isla markii xanuunka uu ka baaba'ayaa insha allah biidnillahi kariim yaqiintana waa inaad qalbigaaga gelisaa laakiin haddeertaan waxaa u baahanahay bedelka aan kan isticmaalayo hadda aniga kana waad isticmaali kartaa waad shiidaysaa budaa ka dhigaysaa kadibna waad isticmaalaysaa dhagayarahana waad ka dhigan kartaa qarfahan waad ka dhigan kartaa waxaa haysanaa meeshan waa qaando qarfe ah iyo waxyar malab iyo biyo qandac bis ayaa u baahannahay intaasita oo keliya marka ugu horeeya waxaan soo qaadayaa qarfiya ayaan soo qaadayaa ujeedii qarfiya ayaa ku shubay kadibna qaando yar oo asigana malab ayaa ku shubayaa malabka sidoo kaleeto afka bacteriyada dhan ayuu ka ilaaliyaa qarfahana wuxuu siinayaa caraf oo maasha allah sidoo kaleeto ilkaha ayuu adkeeyaa malabka sidaas ula socda malabka lagama sheekeyn karo wax walba ayuu daawo u yahay waana mutahar ama nadiifiye haddeertaan waxaan ku shubayaa biyahayga aada muu u kululo laakiin adiga biyo aada xoogaa kulul sameyso insha allah subax walba marka soo kacdid oo cadeysatid ayaa waxaa sameynaysaa waad ku luqluqanaysaa kadibna waad arki doontaa natiijada ugu yaraan 3 week ilaa 4 week subax walba isticmaal kadibna iigu soo duceey insha allah biidnillahi kariim marka uu walaalkaaga wax wanaag ama wax faa'iido leh uu kusoo gudbiyo waxaa lagaa rabaa in aad dhiirigelisid asigana markaaseeti inuu bulshadiisa wax usii qabto wuu u baahnaanayaa laakiin haddii aad niida ka jibisid waxaa laga yaabaa inuu isoo dhibo laakiin uu dhaho iska sameey oo qofka faa'iideysa ama dadka saas waaye marka walaalkaaga idfac billadii hiya axsan mar walba wanaaga ku caawi walaalkaaga
wax xunna ma sameynayo kulay fisqi ku taageer ma dhahay qofka hadoo fisqi wado in la taageero ma ahan hoos waa in loo dhiyo sida uu ugu dhiirigelinin laakiin qofka wax dhiirigelin ama faa'iido wado waa inaad hore u socodsiisaa insha Allah biidnillaahi kariim waxaan idin rajeynayaa inaad ka heli doontiin kana faa'iideysan doontiin haddii aad videoga ka heshid fadlan like saar hadaa ra'yi wadatid commentiga ku dhaaf sidoo kale ehelkaaga asxaabtaada la share garay inta video lamid ah ku kulmeen waxaa idinka tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maca salaama bye bye